munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha guurtida dhaqanka waxaa garadkii culimaa diinka degmada iyo sidoo kale ganacsato isla markaana ay ka soo qayb galeen dadweyne kala gedisan ayaa maanta lagu qabtay degmada Cabudwaaq. munaasabadani waxaa maanta lagu daafuray isla markaana shaaca looga qaaday taageero ballaaran kalsooni loo muujinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo halkaas lagu soo bandhigay qodobo dhowr ah oo quseeya dowladda iyo fariimo ay u gudbinayaan dadka reer Cabudwaaq dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan ka hana qaaday isla markaana ka taabagashay gudaha dalka Soomaaliya. waxaana dadweynahan maanta isugu yimid fariimaha iyo waliba dhambaallada isdaba jooga ee waayahan gobolada dhexe dalka Soomaaliya ka soconaya gaar ahaan degmada Cabudwaaq ay ku muujinayaan kalsoonida iyo taageerada ay u hayaan dowladda ayagoo codsiyo kala gudsan xagga maamulada iyo waliba maareynta ah gabi ahaantoodba ay u gudbinayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba waa kuwaan dadkii maanta soo qaban qaabiyay xafladani oo ayagu ka hadlayay dareenkoodii iyo ujeedada maanta loo qabtay munaasabadani ballaaran oo maanta lagu soo bandhigay khudbooyin kala gedisan. qodobka koowaad waxa weeye dowladda saddex golay sideeda u qaybsan tahay golo maamul iyo golo baarlamaan iyo maxkamadda sare saddexdaas ay u qaybsan tahay saddexdaba inaan ku ayidno oo taageero kal iyo laab ah ugu muujino baa gogosha ku xusan tahay. waxaan ayidaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasaaradda baarlamaanka maxkamadaha cid kasta oo dowladda ka tirsan si qaasa iyo si jumcada waa ayidaynaa. waxaan codsanaynaa dowladda awlan madaxweynaha ka codsanaynaa ثانيا عن كعصرنا رئيس الوزراء ثالثا رئيس البرلمان كعصرنا رابعا دولته إذا كعصرنا ورقد الحكومي ومحكمة الصرح حكومتي وكرسي بيش الله اللي حكومي والنصيح محمد فارح وهو حكومي ورقد رئيس البرلمان كاللودي بي ورئيس الوزراء كور قبه والمدحوينه كور قبه ورئيس البرلمان كهيه ونكين لو حكومي أكتاغيهي إن حكم كان لفوليو والدولة فوليسو وسيدي محكمة حكومة فوليسو والنصيح محمد فارح وها ووصلوا إنك الدولة toddobaadii ugu dambeeyay gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq iyo waliba degmooyin kale fara badan ayaa waxaa si toos ah uga soconayay xaflado munaasabado banaanbaxyo iyo waliba taageerooyin inta badan ku wajahna kalsoonida iyo waliba dareenka loo muujinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay in xildhibaano ka socda baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo gaareen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayagoo ay socdaal ku soo mareen degmooyin iyo waliba deegaano fara badan oo gabi ahaantoodba ka tirsan gobolka Galgaduud. Mahad Xasan Diini تلفزيون عالمي يونيفرسال عبدواق.